bal waxaad fiirisaa qisada naxdinta leh hooyadan waxay tii gabadh waxa ay joogtay 18 jir ah sanadkii hore dugsi sare ka baxday sanadkana jaamacad bay dhigataa waliba waa ardayda ugu sareysa mar walba imtixaan la galo irig baa laga qabtay bay tii gows ayaa xanuunay dabeetana dhakhtar baan geeyay markaan dhakhtarkii geeyay waad aragteen oo qofka marka iliga iyo ama laga saarayo ama saas oo kale xanuuna laga baaraa xanuunada la isqaadsiyo oo si ay smartay maadaama qalabkii la wada isticmaalayo cudurrada laga baaro waxa kamid ah xanuunkan AIDS-ka la yiraahdo baa kamid ah waxay tiri markii iyars fadhiista la nagu yiri intii baanu fadhiisanay kadibna gabadhii oo gaar ah loo yeeray qolka kana la galay way qaylisay gabadhii waxay tii awalna waa shakisnaa markaan qayladeeda maqlina waa soo orday waanu imid waxa lagu yiri bay ka dhigan tahay gabadhii cudurka AIDS-ka waad qabtaa 18 jir hadda jaamacad bilowday dugsi sare ka baxday waan naxay bay tiri maalinkii oo waxba kala garan waayay gurigii waan iskaga noqonay iligii xanuun iyo wixii waa ilownay habeenkii markay ahayd baan ku wari ii waran balaayadu xagay kaaga timid gabadheedana saaxiib baan nahay bay tiri dabeetana waxay tiri hooyo anigu mana dhilaysto xumaan iyo zinana ma sameeyo laakiin hal qiso habeen ugu dhacday baan kaaga sheekaynayaa habeenkii aan ku dhaxay waa muddo 3 bilood ka hor bay tiri habeenkii aan ku dhaxay gurigii habar yartay hebla soo ma xasuustid haa waa xasuustaa gabadha habar yartay dhashay baa ikaxaysay xeebta liidaanu tagnay xoogaa baanu soo baashaalnay xeebta oo soo dabaalanay kadibna meel hotel ah ayaanu nimid waqti maghribkii ah maghribkii markaan hotelka nimid sharaab baa la noo keenay labadayadiiba ayadu dalabtay hodheelay hore isu yaqaaneenna waa ila akayd sharaabkii markii la noo keenay aniga halkaas isugu kay dambeysay anoo sharaabkii la ii keenay oo sharaabkii cabaya isugu kay dambeysay waxaan ku war helay habeenkii 12 habeenimo ama 5 saac oo habeenimo anigoo nin qol la jiifa ayaan isku soo baraarugay anoo nin qol la jiifa waan naxay waa argagaxay laakiin wali caadi ma ihi waxba igu sii jira wixii la cabsiyay sharaabka loogu daray waxay tiri in yar ka bacdi ninkii dharkayga xidhu igu yiri dharkayga ma xidhay banaankan u soo baxnay tii inkaarta qabtay soo shirqooshay in abtid habrowdaagteeda ahayd oo banaanka taagan ayaan israacnay bajaash baanu ka qabsanay meel ka horeysa hotelka markii bajaashtii aanu fuulnay ayaan anigu caadi ku soo wada noqday oo aan is ogaaday in layga shaqaystay oo xumaan laygu sameeyay sidaas aan ku soo tagnay waan aamusay maadaama nin nala socdo oo bajaashta nin nagu wado markaan gurigii nimid baan ku inaa inkaare ku dhacday xagaadi geysay maxaa ay ku dhacay markaas ay ku tinaa naga aamus maxaa noo soo raacday waxay ka dhigan tahay ayadu waa gaangiistarad shaqadan iyo hawshan iyo foolxumadan way taqaanaa ma u jeedaa way taqaanaa foolxumadan waxaan u jeedaa marka maamadii waxay leedahay hodheelkii baa la garanayaa laakiin ninkii gabadha waxa qaadsiiyay iyo cidii wax ugu dartay sharaabka iyo midna la garan maaye hodheelkii intaan taga ma qabsan karaayo magtii gabadhayda iyo gabadhayda wixii la gaarsiiyay ma ku leeyahay taas xaggan ay dhig laakiin maxay tahay fariinta inoo diraysaa khatartu intay la eg tahay iyo gabdhaha yaryarka ah ee si yaacaya ee meelaha noocaas oo kale tegayay shirqoolka si ugu sahlan yihiin ayaa arrintan ina tusinaysaa